الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo maalin isniina taariikhdana tahay 17 bisha Oktoobar ee sanadka 2016 ee miilaadiga kuna beegan 16 bisha Muharram ee sanadka 1437 ee hijriyada. waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee barnaamijkii la magac baxay raadraaca boqortooyadii baaxadda weyneed ee Ajuuraan oo hadda la yiraahdo boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo aad ka daawanaysaan telefishinka BSS TV oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo hawada si toos aan u galin. dhulmareenka caanka ah ee Ibn Battuta ayaa kamid ahaa dhulmareenadii magaalada Muqdisho yimid xilligii ay boqortooyadii Ajuuraan ka talinaysay. waxa uuna buugiisii ku qoray in magaalada Muqdisho ay ahayd magaalo aad u weyn. waxa uuna sheegay in markabkii uu saarnaa markii uu soo gaaray xeebta magaalada Muqdisho ay soo fuuleen qaar kamid ah ciidankii ilaalinaya xeebta magaalada Muqdisho. Ibn Battuta ayaa sheegay in ciidanka ay isaga u yimaadeen ayagoo u moodayay in uu yahay ganacsade, hase yeeshee Ibn Battuta dadkii la socday ayaa ciidanka u sheegay in uu Ibn Battuta uusan ahayn ganacsade, hase yeeshee uu yahay faqiih. Ibn Battuta ayaa sheegay in markii ay ka soo degeen markabka isaga iyo asxaabtiisii ay xeebta magaalada Muqdisho kula kulmeen qaadiga iyo asxaabtiisii. kadib qaadiga ayaa yiri aan soo salaana sheekha. Ibn Battuta ayaa weydiiyay qaadiga oo ku yiri waa kuma sheekha. qaadiga ayaa ku jawaabay oo yiri waa suldaanka. Ibn Battuta ayaa sidoo kale sheegay in Soomaalida ay caadadoodii ahayd in ay suldaanka ugu yeeri jireen sheekh. Ibn Battuta ayaa sidoo kale qaadiga weydiiyay oo ku yiri ma inaan suldaanka salaama haddaan soo dago. waxa uuna qaadiga ugu jawaabay in ay caadadoodii tahay haddii uu faqiih ama qof wanaagsan uu yimaado ay marka ugu horeyso ay is arkaan suldaanka. Ibn Battuta ayaa sidoo kale ku qoray buugiisii kana warbixiyay qaabka loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho kolkii uu la kulmay suldaanka Soomaaliya. waxa uuna buugiisii ku sheegay in markii ay isaga iyo asxaabtiisii iyo qaadiga ay gaareen qasriga boqorka lagu firdhiyay caleemo udgoon oo loo yaqaano qunqun iyo fiyooro. waxa uuna boqorka ku amray in la dejiyo guriga ardayda. gurigaasi oo uu sheegay in lagu marti soori jiray dadka. kadib Ibn Battuta iyo asxaabtii la socotay iyo qaadigii ayaa gaaray gurigii uu boqorka amray in la dejiyo. waxa uuna Ibn Battuta sheegay in guriga iyo qasriga boqortooyada ay isu dhawaayeen. waxa uuna sidoo kale sheegay in guriga aad loo gogolay. من على الرمضة مش حفل قدم يستاهل ومن السقا غرسك عرق دمع ودم يستاهل. Ibn Battuta ayaa ka warbixiyay raashinkii lagu soo dhaweeyay. waxa uuna ku sheegay buugiisii in cuntadii lagu soo dhaweeyay ay ahayd bariis lagu dhex kariyay subag. bariiska ayaa loogu soo shubay xeero weyn oo geed la qoray ka samaysan. waxaana bariiska kor looga saaray suugo oo ka samaysnayd hilib, dooro, kalluun iyo khudaar. sidoo kale waxaa kamid ahaa cuntadii lagu soo dhaweeyay basbaaska, canabka, liinta iyo tufaax. Ibn Battuta ayaa sheegay in dadka reer Muqdisho ay caadadoodii ahayd in ay maalinkii cuni jireen 3 goor. ومن أرى صحر الضغائب له غنم يستاهل
ibnu batuuta ayaa sidoo kale ka warbixiyey dharkii ay xiran jireen boqoradii hore ee Soomaaliya waxa uuna sheegay in boqorka uu xirnaa khamiis oo xabadka ka furan oo ah nooca qudus laga isticmaali jiray waxa uuna midabkiisii ahaa cagaar waxa uuna boqorka hoos ka batay dhar nooca masaarida oo kale shabaha iyo cimaamad aad u qurux badan oo aadan malaysan karin quruxdeedii حنا هلك يا دارنا برد وهجير حنا هلك يا دارنا وخيرك كثير حنا هلك يا دارنا برد وهجير حنا هلك يا دارنا وخيرك كثير sidoo kale ibnu batuuta ayaa ka warbixiyay boqortooyadii ajuuraan maalinta jimcaha waxyaabaha caadada u ahayd waxa uuna ku sheegay buugiisii in maalinta jimcaha kolkii la gaaray loo keenay dharkaasi oo uu ku sheegay in ay ahaayeen macaawis uu qofka ku duubanayo dhaxda iyo cimaamad laga soo gooyay Masar intaasi kadib ibnu batuuta iyo asxaabtii la socotay ayaa isku raacay masjidka jaamaca mixraabka meel u dhow ayaa ay ku tukadeen ibnu batuuta iyo asxaabtiisii kadib markii uu boqorka ka soo baxay mixraabka ayuu ibnu batuuta salaamay boqorka waxa uuna ibnu batuuta sheegay in boqorka uu aad u soo dhaweeyay waxa uuna boqorka ibnu batuuta ku yiri qof wanaagsan oo noo yimid ayaa tahay maamuus iyo wehel baad ka heshay deegaankeena نستاهلك يا دارنا حنا هلك انتي سواد عيوننا شعب وملك نستاهلك يا دارنا حنا هلك انتي سواد عيوننا شعب وملك kadib markii ay ka soo baxeen masjidka boqorka ayaa dul istaagay qabriga waalidkiisii oo halkaasi ku dugnaa waa uuna u duceeyay kadib waxa uu yimid boqorka wasiiradiisii iyo la taliyaashiisii iyo horjoogayaasha ciidanka waxa ayna wada salaameen boqorka ibnu batuuta ayaa sheegay in salaanta caadadoodii ah ay ahayd sida salaanta reer Faris iyo reer Yemen oo ah in marugsatada qofka uu dhulka dhigo kadibna uu madaxa iska saaro waxa uuna oranayaa qofka sharaftaada Allah ha jariisiyo مجدك لقدام ومجادك ورا وإذا حكى فيك حسادك ترى ما درينا بهرج حسادك أبد انت ما مثلك انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد sidoo kale duwaarta Barbosa oo ah sarkaal Boortaqiis ah ayaa sanadkii 1500 si nabad ah ku soo galay magaalada Muqdisho asiga oo isku ekeysiyay ganacsade waxa uuna sheegay in xilligaasi uu ka talinayay suldaan lagu magacaabo Boqorre waxa uuna sheegay in Soomaalidu ay geesiyaal ku ahaayeen dagaalka waxa ayna ahaayeen kuwa aan baqin oo dagaalyahana ah waxa ayna ku hubaysnaayeen falaaro aad u sumaysan qofkay ku dhacdana daqiiqado gudahooda nafsada ay kaga baxayso ciidamada duulayaasha Soomaalidu waxa ay ahaayeen niman ku xeel dheer tabaha dagaalka waxa uuna sheegay in luqadda Carabiga ay wax ku qori jireen luqadda Soomaaligana ay gooni u ahayd من دعا لله بشرع وحكم يستاهل ومن رفع راسك على كل الأمم يستاهل duwaarta Barbosa ayaa sidoo kale qoraalkiisii ku sheegay in magaalada Muqdisho ay ahayd magaalo aad u weyn dadka ku nool midabkoodii uu ahaa madow iyo maarliin cadaankana uu ku yaraa waxa uuna sheegay in magaalada ay lahayd suldaan duwaarta Barbosa ayaa waxa uu qoraalkiisii ku sheegay in magaalada ay dhoofin jirtay dahabka xabkaha iyo faanta maroodiga iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد duwaarta Barbosa ayaa qoraalkiisii raaciyay markaad magaalada dhex gasho waxaad ku arkaysaa oo ay ishaada qabanaysaa sayladaha kala ah 1 hilibka 2 galeyda 3 qamadiga 4 khudaarta noocyadeedii kala duwan 5 fardaha iyo waxyaabo kale
oo aad u fara badan oo ku tusaya in ay magaalada hodan tahay. مجدك لقدام ومجادك ورا ونحكى فيك حسنك ترى ما درينا بهرج حسنك أبد. ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in taariikhdan laga soo aruuriyay kaydka qoyska reer boqor ee Aala Sheekh fasaxasna uu bixiyay boqorka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya boqor Mayo Xuseen Abow Aala Sheekh.